TV فرنسا ودقتلانيga magaalada Faransiya warka jiro ka sheeg maanta aan soo qaadana bishay tahay 10 bishii toddobaad 2024 warka jiro ka sheeg maanta waxaan rabaa inaan ku soo qaato haddii aan siyaasiyiinta maanta jiro aan iska qabanin wax Soomaali la yiraahdo ma jiri doonaan haddii aad rabtaan inta yaroon haysano inay noo badbaadaan siyaasiyiinta waa inaan wax iska niraahdaa horta waa in la helaa ururo u dooda dadkooda iyo dalkooda Soomaali kuma yara dad wax bartay Soomaali kuma yara abukaatiyaal Soomaali kuma yara saraakiil dagaalanta annaga kulligeen ayaa u suubsan dad dagaalamo waxaan hubnaa wax waaye Itoobiya dhul aan leenahay inay qaadan karin laakiin waxaa la rabaa inaan iska qabanno siyaasiyiinta noo hoosaasinaya dowladda Itoobiya ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego 33 sano oo dhibaato ayaan soo marnay waa isdilnay waxba isgaarsiinay Itoobiya intaas shaqay wadatay shaqaday wadatay ayay rabtaa inay miraheeda hadda gorato ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego horta caqli gal ma tahay dawlad aan bad lahayn og ciidan bad meel ay geysato haysanin in ay 70,000 oo ciidan badeed ay samaystaan ee guujisiyo iyo maraakiib dagaal ay samaystaan say ku fikireen say ku keeneen inay suubsadaan waa fikrad leesla ogaa ay siyaasiyiinteena la ogaayeen Itoobiya waay warka markaa runtiisa aadno Itoobiya waxay ku kacday waa wax loo diray ee ma aha waxay ciid iska maagtay ma aha waxaan rabaa Soomaaliyeed inaan u tilmaamo Itoobiya dhibaatadan ay ummadda ku hayso ay rabto inay dhulkooda iyo baddooda ku wareegsato inay ku soo fikraysi muddo dheer halka nin oo siyaasi ah oo Itoobiya damaca ay rabta ka hadlay oo sheegay Ilaahay u raxmado Cabdullaahi Yuusuf oo ah Cabdullaahi Yuusuf asoo madaxweyne ah liirsaan isaan ka rabnaa wuxuu yiri ma yeelayo Cabdullaahi Yuusuf waxa loo arki jiray inuu ahaa nin xukun jecel oo Itoobiya xataa waddankan ku soo hogaamiyay asigoo Maxamed Siyaad bar la dagaalamay Itoobiya galdogob iyo soo galiyay calankooda ka taageen wuxuu yiri calankiina say ugu taagaysiin aniga kaalmeeyay dirmaana calankiina galdogob inaan ka taagtaan ima soo raacin ninkii waa la xiray 7 sano waa xirnaa horta nin Soomaali ah oo Itoobiya wax mooday oo arkay Itoobiya waxay tahayna sheegay ninkaas ka jira waxaan rabaa markaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego siyaasiyiinta waa inaan wax iska dhahnaa waxaan rabnaa siyaasiyiintii waddankan 33 sano ee dhibaatada jirtay wax alla xataa senyorada lagu weeraha naqdaano wax alla wixii dad ahayo arrimahaas lugta ku lahay waxaa la rabaa Itoobiya waddankan waxay ka damacsan tahay ee dadka kala hadashay waa inaad dadkiina u sheegtaan hadda qarsataan bariis soo baxee waa aragteen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markuu joogay heshiis oo dhaxmaray asiga iyo ninka la leeyahay Abiy Ahmed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma sheegin waxaa laga sheegay laakiin baarlamaankii dowladda Itoobiya Soomaalida markaas ay ku soo nibdaatay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laakiin waa nin rag ah qaladkiisa sax yaqaano markuu arkay in lees qabsaday ay arintaas ay meel xun ay marayso gadaal ugu baxay lugtiisa gadaal u qaatay marka hadda waxaan rabnaa maanta madaxweyne waxaa ka ah Soomaaliya nin 2 jeer madaxweyne ka soo noqday Xasan Sheekh Maxamuud waxaa laga rabaa ummadan inuu u sheego hadduu ibnul balad yahay waa nin u dhashay beledka Soomaaliya nin u dhashay hadduu yahay waxaa laga rabaa Xasan Sheekh Itoobiya waxay waddankan ka rabto oo asiga waa og yahay waa inuu u sheegaa farmaajo wad ay ahayd wax kastoo jiray
lugtoo ka baxsaday xasan sheekh maamul goboleedyadii la sameynayay ninka soo suubi asagoo ahay annaga waxaan soo helnay markaan dib u raadinay wixii la suubinayay inay mila zanaabi oo asiga samaystay waxaasna maraykan iyo ayaga isku ogaayeen soomaaliya laga dhigo wax dhul la leeyahay oo la maaray karo taasna waxay ku dhacday waxay ahayd maamul goboleedyadii la sameeyey sidii la iskugu qasay gobolkii banaadir oo haystay sida loo kala tuuray maxaa yeelay gobolka banaadir wuxuu ahaa gobol asiga dhanba bad haysto shabeellada hoose aruf laga siiyey koonfur galbeed la raaciyey maxaa la shabeellada dhexe jaf laga siiyey hiiraan la raaciyey maxaa loo raaciyey markay rabaan inay galaan meesha la leeyahay puntland bad ay leedahay xuduud ay leeyihiin markay rabaan hirshabeelle kaanta tan la sameeyeyna hiiraan ay xuduud leeyihiin baday u sameeyeen shabeellada dhexe koonfur galbeed badaa loo sameeyey jubbaland geeskaasay kala leeyihiin baday leedahay waa waxaysteen alora heshiis maraykanka iyo etoobiyaanka iyo soomaalida markaas oo dowladda ka mid ah oo waxaas ayaa waxay goosteen in etoobiya ay yeelato 70,000 oo ciidan badeed ah maraakiib dagaal guujisiyo iyo maraakiib waxay rabta u keenayso warkii sidii loo soo waday xasan sheekh waa baxay dirgaxo wuxuu ka dheelayay meesha la leeyahay maxaa la dhahay jigjiga marka xasan sheekh wax badan oo og yahay xasan sheekh waxaa laga rabaa asiga iyo dowladdiisii wixii soo ahaay oo dhan waxaa laga rabaa in ay sheegaan etoobiyaanka heshiisyada lala galay heshiisyada jiray abiy axmed maalin horaata wuxuu ka hadlay baarlamaankiisa si jees u hadlay sida jeeska u hadlay waxaa xasan sheekh wuxuu yiri barkee wuxuu yahay og yahay xasan sheekh waxaa la yiri warniyahow diyaaradan ingeerka aad wadatid aad meel kasta ku tagaysid aad meel kasta dacwo geynaysid waxaa wanaagsan lacagtaas inaad hal laami dowladdaada ugu samaysid lacagaha dibadda ku dhamaynaysid in lagu jeeso asaa samaystay xasan sheekh marka waxaan ka rabnaa ummadda soomaaliyeed ha u sheego dirgaxda marka uu dheelaayay micnaha uu dheelaayay heshiisyada lagu soo heshiiyey heshiisyada jiro etoobiya 33 sano ee lasoo dhaafay lugtay nagula jirtay haddii sida aan idin sheegay ay dhacdo waxaan noqonaynaa sida falastiin marka dambe waxaa imaanayso ciidamo gaaraya intaas inayna soo galaan iyo 40 milyan 60 milyan oo etoobiyaan ah oo annaga meel aan ka baxna nala waayaba xasan sheekh maxamuud waxaa laga rabaa inuu caddeeyo horta waxa jiro heshiisyada soo jira inuu sheego wax ma tarayso 24 saac inuu dhinacna ka qayliyo dhinacna madaxa uga salaax etoobiya uu yiraahdo walaaleen waay dirsana ilaa iskeen baday war ummad badan oo ilaa isbadaa jira oo idab darro haddii isku arkaa iska riixayaan waa ujeediyeen falastiin maanta waxaa dhulkooda ay ayaga lahaayeen ayaa lagu dilooyaa ayaa lagu duugooyaa ayaa lagu rafaadinaa annaga heerkaas inayna la gaarto ma rabno haddaan dadnahay wax waa iska dhici karnaa weli xasan sheekh waxaan ka rabnaa heshiisyadii dhacay maamul goboleedyada la suubiyey waa maamul goboleedyo kulligood hadda u shaqeeya etoobiya waa ujeedaday shalay samaysay waaye kulligood hadda etoobiya u shaqeeyaan hadda koonfur galbeed sidee rabta yeelaysa haddii la diiday etoobiya raacay leedahay jubbaland sidee rabtay sameynaysaa haddii la diiday waxaan raacay leedahay nimanka la leeyahay maxaa la dhahay galmudug waa suuragal ayaga naftirkooda shalito ahlu sunna wal jamaaca waxa hubka siina ayaga ahaayeen hadeerna qorqor ay dhihi karaan war waxaan intaan ku suubinaynaa dhinacayna soo mar xaggoo maraa puntland ka mid waayaba xasan sheekh marka yow haystaa yow gacanta ku haya xasan sheekh marka waxaan leeyahay aniga xasan sheekhow
daawada waxay ku jirtaa boqol jeerna waa kuu sheegay siyaasiyiinta iskugu yeer arrintan farahaaday ka bixin rabtaa intay farahaada ka bixin oo ninkan la leeyahay Abiy Ahmed oo og yahay inuu xaniyaha ka haayo xaniyahada waxaad uga foji kartaa in aad gogol nabadeed qabatid ummadda iskugu yeertid dowladaha goboleed iskugu yeertid ummadda Soomaaliyeed ay kula aragto ninka Ethiopian raaca ah ummadda Soomaaliyeed ay aragto kan Ethiopian diidka ah si aan meel ugu soo wada jeesano xasan geedaan farahadii ka bixin iska ilow dastuurkan aad bedelaysid iska ilow qof iyo codkan awadid wadankan badbaado u baahan yahay ninka la leeyahay markuu ku handadaay baarlamaankiisa oo ka hadlaayo wax badan oo og yahay nimanka miiska noo soo saar Ethiopiaanka raacsan waxaan ku ogaa karnaana wax waaye inaad siyaasiyiintii iskugu yeertid aad tiraahdid aniga wadankan madaxweynaan ka ahay waqti yar aan leeyahay 2 sano waa iga baxday 2 hartay wadankan wixii loo qaban karo gacantayga kale kuma jirtay gacantiina waa ku jirtaa inaad tiraahdid Ismaaciil Cumar Geelle iyo siyaasi Aforge waa dictatorial waaye meel ay ku geey karaan iyo waxay ku soo ziyaadi karaan ma jiro Soomaaliya ogow qarbihi aan ku duulo lahayd Ethiopian haystaa calool iyo madax ma duulo waa kuu sheegaa xasanow waa kuu digaa weli waxaan ku leeyahay intay goor tahay weli waad fiican tahay Soomaalida waa ku wada raacsan tahay sidaad Ethiopian uga soo horjeedid laakiin waxa uga soo horjeesan kartaa kuwa Ethiopian ka jecel iyo Soomaalida istus hanaqanin dhabax ku dhag hanaqanin xukun jecel hanaqanin kursigaas raba kaliya inuu fadhiyo waxaan ku dhihi lahaa xasan waa waqtigii kuugu dambeeyey waxaadna beerdaray doontaa ummadda Soomaaliyeed waxaad beerdaray doontaa inaad Soomaali dhaxtaa ku dhex noolaatid waxaan ku leeyahay midda ku wanaagsan waxa waaye xasan intii arrimaha faraha ayna ka bixin siyaasiyiinta iyo baarlamaanada iyo kulli iskugu yeer Soomaali inay mid noqoto meel aan ka soo wada jeesano ayaa wanaagsan taasna adeedanay ku tahay sharaf ay ku tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh